marka maxaa dhahnay cashirkan marka akhriseen kadib wax kale aan ku daro marka si fiican u sharxleen muhiimadda aan ka leenahay maxaa waay cashirkan qalbigeena inaan ilaahay ku xirno inaan ogaano markaan dambi galno yaa u toobad keenayna allah dambigiisa isaga tirtirayna inaan ilaahay u toobad keenno haddaana ilaahay aqoonin ma toobad keeni karnaa ma toobad keeni karno markaan xanuunsannahay mid kalena ogaada jannada yaa gala qof markuu dambaabo toobad keeno lama dhihin qof markii oo jannada qofka galaayo ma dambaabo lama dhihin laakiin yaa gala qofka markuu dambiga gala toobad keenka badan ilaahay uu jecel yahay dadka toobada keena in allaha yuhibbu tawaabiin marka yaa markaa xanuunsanna caafimaad weydiisanaynaa allah hadduunaba ogeyn ka waran caafimaadka meeshuu naga jiro haddaanaba ogeyn ka waran qalbigeena iyo caqiidadeena way qaldan tahay yaa markaan wax rabno weydiisanaynaa allah haddaan rabno inaan magangalno yaa magangalaynaa allah qul acuudu birabbi nnaas qul acuudu birabbi lfalaq marka hadduusan qofka ilaahay aqoonin waa dhibaato gaalada way aaminsan yihiin ilaahay inuu wax abuuray yaa cirka abuuray yaa dhulka abuuray yaa annagana abuuray markaa dhahda maxay ku dhahayaan allah laakiin yaan magangalnaa yaan caabudnaa yaan wax weydiisanaa markaa dhahdid maxay ku dhahayaan ilaahyo kale la imaanayaan sax yesus nabi ciise kula aadaayaan amay kula aadaayaan istatiya sanamyo asnaamay kula aadaayaan amaba kale awowayaal iyo ayeeyaal iyo dad beri hor dhintay ayay kula aadaayaan sida santa luusiya iyo waxyaabo kale aan jirin soo ma laakiin annaga yaan barinaa oo wax weydiisanaa ilaaha abuuray cirka dhulka innagana abuuray ayaa xaq u leh in la caabudo soo ma marka waa inaan ilaah isbarannaa soo ma haddii marka wax jir aan waddada ka leexanno oo aan la aadna qalbigeenna oo aan ka sugno caafimaad wixii ilaahay ka soo haray ama wax gacanta kuugu xidhan ha noqoto ama wax dhuunta kuugu xidhan ha noqoto amaba wax nasiibkayga wanaajina aad tidhaahday ha noqoto amaba hadalaa ku hadashay ha noqdaan haddiiba waddadii la rabay aa ka leexatid maxaa ku dhacday dambigay ku dhacday shirkiyaa ku dhacday dambigay ku dhacday shirki dembiga ugu weyn waay soo ma waana dembiga inuusan ilaahay cafinin qofkii dembigaasi ku dhaca oo ku dhintan intuu galaa naar inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قفكي الشرك كل انتهى وحاوي إلهي أبدا بدافعه جنة ما قال يا قف كاسيته النار وقال دونا عد وقرقاري سنوجرته آياتي كان محايد في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قفكي الشرك قالوا كل انتهى إلهي أبدا بدافعه لكن وحي إلهي كسوهر الدنبيد الشرك ومدافع سواء الشرك كسوهر marka waxaa la rabaa marka inaan taas ku fikirno qalbigeena ilaahay ku xirno cashirkaan maanta qaadanay ayaaba noogu filanba inaan si fiican qalbigeena u gelino haddaan xanuunsado yaan baryaa oo caafimaad weydiisanaya allah waidaa maridtu fahuwa yashfiin nabi ayuub calayhi salaam markuu xanuunsaday yuu baryay muxuu dhahay annii massaniya adurru wa anta arxamu raaximiin ilaahu dhiba igaaray uu dhahay xanuunkii gaaray caruurtii ka dhimatay ilaahay muxuu ugu bedelay fastajabnaa lah waa laga ajiibay ducadii waxaa laga feeday dhibkii hayo caafimaadaa la siiyey intii ka dhimatay laba jibaarkeedana waa la siiyey caruurtii dhowr iyo toban ahayd dhowr 20 soo ma haddana nabi nuux calayhi salaam ahayn oo wadannuun mise nabi yoonis markii uu ma aragtay biyihii hoosteeda uu galay oo dhibaato la kulmay oo nabirigii laqay yuu baryay allah awoohey iga soo gaar moo dhahay hooyaday iga soo gaar moo dhahay sheekh hebel iga soo gaar moo dhahay nabi kale muu barya laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min alظaalimiin ilaahay dhibkuu ku jiro waa ka soo baxshay laakiin nebiyada baslemaa iska leh maya ilaahay waa kusii daray wakadalika nunji lmu'miniin dadka mu'miniintan sidaasoo kale uu ilaahay u badbaadinaa waxaa lagaa rabaa marka iimaankii inaa la imaadid yaqiintii la imaadid qalbigaaga ilaahayna ku xirtid maantana waxaa ka badan adduunyada dad badan oo qalbigooda wixii ilaahay ka soo haray ku xiran dadaa qalbigooda saaxiib ku xiray dadaa qalbigooda adduunyo ku xiray dadaa qalbigooda wax kala ku xiray marka ilaahay quluubteena ha hagaajiyo hana naga dhiga ahlu tawxiid ujeedadiina loo abuuray oo dhan maxay ahayd
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون. cibaadadeenu dhan inaan ilaahay keliya aan u gaar yeelno ayuu ilaahay noo abuuray rasuul kasta maxaa loo soo diray wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin mise ilaa nuuxii ilayh ilaahay ma jiro waxa uu soo diray rasuul ilaa wuxuu waxyoon jiray laa ilaaha ilaa ana facbuduun soo saas maaha walaqad bacathnaa fi kulli ummatin rasuulan أن يعبدوا الله. an yacbudu allaha wajtanibu taaguut shaqadii nabiyada loo soo diray maxay tahay in ilaahay keliya la caabudo wixii ilaahay ka soo haray aan la caabudin marka qalbigeena maxaa la rabaa haddaan rabno inaan badbaadno inaan ilaahay oo keliya caabudno xadiidkii nabiga sala allahu alay wasalamna muxuu ahaa markuu mucaad ku dhahay mucaadow ma garanay xaqa ay ilaahay uu ku leeyahay addoommadiisa iyo xaqa addoommada ilaahay ay ku leeyihiin markaasuu dhahay ilaahay iyo rasuulkiisaa og kadib jawaabtii uu nabiga siiyey maxay sala allahu alayh wasalam xaqa ilaahay addoommadiisa ay ku leeyahay waxay tahay inay ilaahay caabudaan aysanna u shariik yeelin cid kale inaysan la caabudin xaqa ilaahay ay ku leeyihiin addoommadana maxay tahay inuusan cadaabin qof aan ilaahay u shariik yeelin marka qofkaan ilaahay u shariik yeelin ilaahay ma caabudi ma cadaabi doono marka ilaahay subxaanahu watacaala hana waafajiyo tawfiiqda ilaahayna hana fahamsiiyo amiin dhaha waqtigeedu wuu dhammaaday bisantar kun maanta meeshaan waxaan rajeynaa badan ee fahamteen